السلام الله عليكم ورحمة الله وبركاته. داوديال ملك سوجوكتان سو دوادا إذا لنا هاي هادو قولوا إنا سامحوه وحنا هالكان كده فوري دونا برامج عصب والله ما قاعد بحي كافي كلا ديري وحنا برامج كا إلى دادهين دونا أما قرب كي كسو موقان دونا ولالكين وقاسكين أذيركين حسين عبد السلام وروروني وياه مركا حسين عبد السلام حسينو مركا هرسو دو ودوي وان ما حدسنتهاي ها أدبا وما حدسنتهاي سيدو كله برامج كان maanta meeshan aan ku daafurnay waxaan ugu magac daray kaafi kala dheeri naam kaafi kala dheeri intaan u soo noqonin micnaheeda waxa kale oo barnaamijkan qaybtiisa koobaad kaafi kala dheeri aan ku soo qaadan doonaa dhaqankii hore iyo dhaqanka maanta waan gartay waa maxay horta dhaqan maxaa ula jeednaa dhaqanka dhaqan ha waxaa horta loola jeedaa ha bay-ada markaa meeshay ku nooshahay ha waxa ay ku dhaqanto caado u ah ha wax wanaagsan iyo wax unba ha ku dhex jiraba ha ku dhex jiro laakiin inuu wanaag uma ka soo qaadanaynaa waa runay sida fiican waaya marka bay-adu meel kastoo yacni bini aadamku joog dhaqan bay leeyihiin waa runay dhaqanku halkaasu ka bilowda yacni waxaan u fahanay dhaqanka waxaa weeyaan mujtamaca markaas meesha degan environment afso yani ciyaalsi wallahi baa nagu jira moogta marka waa bay-ada ma fahmayaan waa environment aad iyo aad marka shacabka meesha ku nool ee khalqiga waxay caada ahaan ama يعني تستور هان يجو أي كل رقمان ها فمحو هاي يا لي دقن كاسالي أد بنكوفه أنا يدمان أنت محو هاي أمرك هرفة هنزنين بقى نعم إنك مركز صومالينا هاي محا إنه دقنا إنك وها إنه دقنا ها وافر بدنيه ويا هاي بالكو همسن كأمهم هرتا ودقن دقن كدينته ورد يحرد وصاص ويا waxaad garatay ma aad baan ku fahmay waxa kale oo ku jiro dhaqamo inagu aanu leenahay caada dhaqameed la yiraahdo caada dhaqameed inagu aan leenahay aan leenahay oo diintiba hadee ka yar mid ahayn oo waayahay yar barba socoto waa runay laan iska caadaystay oo la saga dhaqmo waa run waa wax wanaagsan wax un baa weelaadahay labaduba waa runay laakiin wanaaga u badan marka qaybta aad caab rabto inaan ka hadalno ama aan ku daadihiyo bad ii sheegaysaa وريا إلهي قيب تاسم كل شيء هي هو هول كله نعم أد بنكون فهمي أو دقن كأنه كو ودينته الحمد لله هذا الغف إسلام تاعي وح وش عرفت بدنا هرت قفك أويا شيء دقن يا عذبة وكدكتو ده ودينته تاسو أذكر عني نعم وحن كهرباء سومالي دي هراء يا سومالي ما أنت جوكته ما يسكت دقن يسكت حير باع مسوي كل دويني هذا هانتا ما كان فيرس أد بيكلا فوقين وصوبتان كافي كلا ليرو رحنا ببرنامج ويكلا فوقين كافي كبيرينك ولا بحي صاحبك وياه وياه أد بيكلا فوقين وياه دقنك هوري حيال بدن بولها حيال بدن بولها odayaal la xurmeeyo laha waayahay ugaasiye laga dambeeyo laha waayahay hadal laga dambeeysiinin waayahay odayaal waxay lahayn ugaasiyo suldaamo hada waa leenahay ما يكون هريكون واكل دوين ما كل دوين هنود وايا واكل دوين هاي كوا قد أمانة أنا كوا أمانة هاي واكل دوين هاي قضية شهران كتشوجارو هاي ما قرأت واسكي معها واسي هراء وايا سلطانك معها كي هراء هاي قضية دقن كوا هراء معها وايا حتى دنيار هراء معها بوريا الله يقال يا تمر ما مركل اسكو دارو dadku waa raweyn hino dhinac kala hada loo socdaa waayahay taasi waa aragtidaada taasi waa aragtidaada naam odayaal baan lahayn baatari ugaasiyaan lahayn naam haddaba waan leen ugaasiyo oo iyo odayaal oo waa kuwa xildhibaano noo soo doorta riya ilaahay yaqaan ka lagu qabsan xildhibaan ku soo doorta wariyo barnaamijkan eega macnaha xaqaba kuma soo doortaba waa xulasho qaab xulasho kusoo doortaa saxiix ninka asoo qabiilkiisa arkay in qabiilka la keenina meesha qabiilkiisa naftiisa yuusa xaq u dooranay oo xulasho ku doortaa waayahay warbul hawshan waxaad gartay ma qaab odayna wax uma soo doorto
وايه قاب كدد أنا هذا هالكن عديني نيو يديك الفيري صار يا شو تي واحد بهوس كر واحد بريبانيسا هذه وحالة يدي تي وايه وحصح وحامه ما وحاجرت لي لا ها oday reer u weyn iyo umulisa say wax u arkaan uma sheegaan wariya alla yaqaan waaya ka wixii waa sheegaynaa laakiin aqal badan baa garan waa runay aqal badan hadii fahmi weydaan annahay weydiin laftirkiya fahmin bi ma garat haye marka waa saas badan baa ku kala duwan yihiin waayahay marka abu xuseen waxaan rabnaa horta ugaasidii waa saas oo baldood baad ka keentay naam waxa tiri kuwa hore iyo kuwan يعني waxaa u dhaxeeya farqi weyn baa u dhaxeeya farqi weyn baa u dhaxeeya waa saas farqiga u dhaxeeya haduu alla ku idmayo taas hadda afka igaga dhacday ee xulashada xildhibaanada xagga nooga dhig haye siday doonaan baa ku soo xushaan naam maxay kale oo kaga duwan yihiin waa sidii hore waxay kaga duwan yihiin ugaasyadan iyo kuwa hore wax badan bay kula duwan yihiin waaya ugaas waxaa jiro bal eeg hadda maamadiisu soo dhiibi ama sunnadiisa madaxa saarto waayahay soo dhiibi qofka oo odayga ama ugaas kale u soo dhiibi fariin weeye ninkaa ka socto telefoon taar weeye waayahay wuu qaban jiray wax alla waxay ku socoto qofka fariinta wado ayuu samayn jiray kii loo geeyey oo talaab ku qaadi jiray waayay maanta taala mid ayada adag weydiiyay wax ka sahlan baa la helay maxaa ka sahlan halow mi maqlaysa ugaas Xuseen haye si degdeg waxa uu sameeyaa taalaabo maanta waaba cudur umada xagalay kan wuxuu ahaa hada mash maamad ninka muu araday xagal maamada koofiyada ugu soo dhiibaysa waxa loogu dhiibay waa xurmada labada nin ee ugaasyada ama sanaadiida ama odayaasha xurmada agtooda taalo way iyo dhaqankii iyo quruxdiisa caadadii baasa ahay horba idinka hawshan kale arag telefonkii baa lagu dhex dagaaliba jabigiisa kii la hadlayay kii kale way dagaalhayaan way isku caayaan ma laba ugaas iscaayad arturiga waaya ma laba dhaqan iscaayad artay ma ahayn ma jirto waaya xaraam ma kaan jirto waa runay haddana way dhacdaa haye marka saasay different weyn ugu dhaxeeya yaa u dhaxeeya waayahay aad baan kuu fahmay halkaasi waa ku fahmay gartay dhanka hunguriga iyo damaaciga may ku kala duwan yihiin aad iyo aad ya si weyn bay ugu kala duwan yihiin bal inoo sheeg waxay u kala duwan yihiin horta hungurigu waaya laba u kala qaad waaya ma wixii caad ahaan la cuni jiray oo lagu masaariifta laga dhigan jiraa rabtaa mise waxaad rabtaa labadooda hadda sida ay kala yihiin yani sida ay kala yihiin baa waxa la cuno horta naf ma laha hunguri weyninka aan ka hadlayo ma aha cuntada markaa la cunayo yani wax damaaciga wax musuq maasuqida dee haa waxaa weeye musuq maasuqa ugu weynaa baa hadda jiro bal aafadan iyo inkaartan haye ugaasyadii iyo sanaadiidii iyo odayaashii dhaqanka ayuu ka dhex jiraa waayahay ayuu ka dhex jira waan gartay waxaan kuu sheegay hadda nin ugaas haddii loo dhiibo hanti loo dhiibo 100 kun oo Kenya loo dhiibo waayahay waa $1 waa $1 hebel u geebaa la yidhi lagaba ka yaab inuu geeyaaba xumaanna kama ah ma aha xumaan waa waktiga xumaan kama aha waxaan kugu eedi waxaan isbarbar dhigaynaa kuwii hore wixii horee jiray iyo hadda waayahay yaa isbarbardhig ku wadnaaye annagu qola aan yani taarget ka dhiganayna ma jiro laakiin dhaqanku siduu ahaa ee ku saxnaa baan kuu sheegayaa kuwa horena ammaan waxay ka gaareen cumaamadii looga soo dhiibo bari bay bakool keeni jireen waxaan hadda xusuustaa waa in yar aan kugu darahayaa waayahay riti qoorsi ayaa darna waayin wakti jilaal yuu aabbahay nin ka bariyey waayahay waan ku siin buur waayahay waa la kala tegay wakti iyo jilaal baa lasoo maray waayahay ninkii oo socdo baa guriga anaga imaaday waa ninka ritiga qoodhaan ka rabnay waa hagaag wuxuu yidhi warniyo wiilkan aan rab inaan kuu soo diro haye adigina waad noo imaatay haddii ritigiina aad baan ugu baahi qabay oo geeli baa maanta yani ritilaan iga ah tabis waayahay maxaan samaynaa anigan kula hadlahayo waxaa lii dhiibay tusbax waa tusbax saa la odhan jiray moogta waa fahamsanahay
iyo koofi baa lii dhiibay waaya laftirkaaga laftigayga aniga kula hadlahay koofiyada dhoofinaya tusbaxda kale eega tusbaxii koofidii saan u waday baa reerkii ninka geeyey waayahay waxaa ii soo dhibay aabba wey maxaad ula jeeday markaas waxaa ula jeeday waa fariin waana telefon telefonka nagaasa aha waayahay maamadii aabbaha iyo waxaad wadaa tusbixi waa naga dhigis beri salaad dirtiga qaado waayahay war bal hawsha eega bal eeg aduu si liisu aaminahay waayahay aaminku weynankiisa bal eeg halkaas u jooga qadarinta bal eeg waa ma wiilkan miyaan ku celin karaa yani alaabtan oo aabbihii kale kasoo tegey labadii oday uu kasoo tegey miyaan ku celin karaa darteed baa ritiga lii siiyey waayahay subax damaa ritiga kaxeeyey guriga baan geystay ninkaana socotuuba ahay wuu sii socdayba gurigaana wuu sii dhaafayba allahu akbar waan gartay waxaasaan soo maray haye waxaa yaan soo maray waayahay aaminaad intaa ka weyn maba jirinba haye dee hadda ma lagugu aamini karaa tusbax haddaan kuu keeno hadda ma iga qaadan tusbaxa iyo koofiya haddaan kuu keeno waad maasantahay maaniguna aska akhrisan maanaa meela ku socota ma garanaysa waxbay ku socotay fariin bay waday waxbay ka ahayd waayahay waddanka waxbay ka ahayd laakiin hadda waxba kama aha saasay yani u kala duwan yihiin aad baan kuu fahmay intaa waxaan kusoo koobaynaa barnaamijkii kaaf iyo kala dheeri ee koobnaa qaybtiisii koobaad nacam tanna kulankeena xiga waxaan kaga tegaynaa assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu